kulanka amniga gobolka Mudug ayaa waxa ka qayb galay kusimaha gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Xasan Wardheere, gudoomiyaha ku-xigeenka gobolka Mudug ee Galmudug Axmed Maxamed Sheekh Qodaar, duqa degmada Gaalkacyo Galmudug Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale, duqa degmada Gaalkacyo Puntland Injineer Maxamuud Cabdinuur Aadan, taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee Puntland Gaashaanle Sare Muumin Cabdi Shale, taliyaha saldhigga degmada Gaalkacyo ee Galmudug Dhamme Cali Xirsi Sahal iyo saraakiil ka socotay ciidanka sirdoonka qaranka NISA qaybtooda Galmudug. ajendaha kulankan ayaa ahaa mid looga arrinsanayay amniga guud ee gobolka iyo sidii labada maamul ay u sii xoojin lahaayeen ololaha la dagaalanka argagixisada iyo ka ganacsiga iyo isticmaalka maandooriyaha khamriga. kulankan oo socdo qaata ayaa markii uu soo ilaalay waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha ku-xigeenada gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug Xasan Wardheere iyo Axmed Maxamed Sheekh Qodaar oo faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo waxyaabihii ka soo baxay. runtii mandaqadu aad bay wanaagsan tahay oo si guud amniga Puntland iyo Galmudug meel fiican buu marayaa. waxa dhibaataan ma jiraanin. waxyaalaha shirka ugu muhiimsan oo looga hadlay waxa kamid ahaa degmada Gaalkacyo maadaama ay tahay caasimadii labada dhinacba in labada mayr ay meesha fadhiyeen in bal amniga caasimadda kor loo qaado maadaama argagixisadu la filayay in ay mataqaana gobolka Mudug ay imaan doonaan laamaha ammaanka iyo sardoonkuna ay xogaha ay bixinayaan ay tahay wasilna inay joogaaniin gobolka Mudug inay caasimadda soo galaan la filan karo ayaa shirkan maayiradu waxa ay codsadeen laamaha ammaanku in mataqaana rondada magaalada la joogteeyo ciidankuna howlgal muuqda oo balaaran uu ka qabto sidii amniga gobolka loo magiciisin lahaa. waxa kaloo aad iyo iyana laga wada hadlay amniga gobolka Mudug maadaama mid yahay xaaladda wasil in labada dhinac labada maamul ay waxay ka geysan karaan taakulayna ciidanka halka jooga shidaalkooda garaamkooda iyo geelqalkoodaba in aynu isla fiirino si cadawga islaamka shabaabka ah aysan mataqaana ummadda una afin gobolkana saameyn dambe hore ugu yeesheen saameyn dambe aysan ugu yeelan. waxaan ka shiray argagixisada hadalkeeda iyo baa laga shirayay. waxaan leenahay waa soo jeednaaye ma hurdayno. waxaan leeyahay in laga baqo waxaa la dirirahayaa waa dad annaguna dad baana waa dad aan ku tirsanayn oo dhiigga bini'aadanka bannaystay weeye. dhiigga bini'aadanku hal qof oo laga dhigayaa ilaahay xaggiisa koomka waa uga dhib badan tahay. dadka dilkooda dad bannaystay oo mashruucoodaba uu yahay dil weeye waxaa nala dirirayaa. dhibaatooyin badan iyo nidaam badan baa la soo maray. qabiil baa la isku dilay. ilaahay waa naga waday. waxaan u soo jeesanaynaa argagixisada. waxaan leeyahay argagixisada waa soo jeednaa ee ma hurdayno. ilaahay idankiis waxa waaye shirkan waxa ka soo baxay qodobo muhiim ah ee looga hortagaya argagixisada. argagixisada ka hortageedu wax micna uu leeyahay mar wala baabuuninaya. dawladahana waxaan leenahay sida baxda ku aragteen ama wasil nooc walba waa la iska dhici karaa ee nimanka hal la iska dhiciyo. kulankan ayaa isagu qayb ka kulamo saddexdii biloodba mar la qabto kuwaas oo looga arinsanayo wax ka qabashada amniga isoo kalena la isaga warsanayo waxyaabihii ka qabsoomay kulankaas kii ka horeeyay waxyaabihii lagu heshiiyay. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.